halkan waa xarunta dhaqan celinta dib u raxmo oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa lagu dhaqan celiyaa dadka balwada oo ay ku fogaato iyo caasi waalidiinta xaruntan oo si aad loo qalabiyay ayaa hadda waxa ku jiro tiro dhalinyaro ah kuwaas oo la barayo diinta islaamka iyo kitaabada cilmiga qaar kamid ah dhalinyarada ku jira xarunta dhaqan celinta dib u raxmo ayaa ka sheekay farqiga u dhaxeeya markii hore iyo hadda waxyaabaha ugu waaweynaa ee ay kala kulmeen isticmaalka balwada waxa laga saaray shan oo shayaadiin laga saaray oo yahuudiin quraan la saaray quraanka markii la saaray laga saaray shan ayaan shantan waxay raaceen daraawishta qasab jiri qamarjinimada inaa qof walba isla weynaay iska la weynaay aan magaalada ugu baawar sareeyo magaaladan hoosteeda ay imaanaysi balwada sidii balwada kale qaadkii sigaarka kale taabuga samaal jiri xashiishka qamriga waxay kala soconaa maraan fudada culeyska ugu digay fudada dara in 40 baxay amal ay noqotay markii la keenay meesha mustaqbalka dhow waxay go'aansan markaan wax barto in aanay wax sii baro dadka awalkii sidii horena iyo hadda labay kala tahay alxamdulillah ilaahan ku mahadina markaas markoobaad tan inta dhamaana macallimiinteedu oo hadda iwaani gelisay oo diiniyan wax faansiisay ay kana ku mahadina ay kana wallahi waagii hore waa dib badan waa soo maray ma garatay alxamdulillah ninka horta moolka markuu tago oo wax kasta uu dareemi karaa ya moolka duu soo taabto markaas waa wadada waa iska qaban kariyaa hadda aniga dib u raxmo aniga go'aan soo qaatay anigoo asiga aan cunaa baalkii qaadka miro wallahi waa qaadkii waay ya ana cunaa go'aan aan qaatay marka maalin kasta waxaan soo qabto asiga aniga aan geejiri subax anoo hal door aan ka haysan ama habeenkii oo cashadii ay gabtaan qolqolo aan u jiifi jiray ya haddana wallahi alxamdulillah ma sha Allah hadda kulli haddana iimaankayga waa alxamdulillah marka dadka walaalay waxa ku waalinahay marka quraanka kariimka wax kasta inay wacdiga wax kasta dhigtay u taagaan haday faa'iideysi ay rabaan dadka oo waalidiinta dhalay ilmooda wax qabadka haday wax haystaan wax qabadkii wax ku qaban karaan inaad wax u qabtaan aan jeclaa wallahi balwada waa wax badan waa fikrada badan ay keenin jirtaan markayga wallahi fikradaas waxa waaye wax kasto magaalka dhan hadda Beledweyne ma jooga ina xukumi kara ilaaha jirta aniga hoosta ii keeni jirta baayida marka cunaaba inaan laqlaqa ya markaasna waa dhawna waa dabaqa aan dhisaybu sheekadii markaan jiiftay subaxii ama wixii go'aanka aan qaatay xalay maba qaadahay qaadkan soo qabanaa adana qaadka iga maqan mugta qaadkina soo qabto adana hadii koo leeyahay adana jujug meesha joog leeyahay faa'iido male wuxuu leeyahay male dadka walaalay cuno waxaan leeyahay aska dhaafan waxa qaba jiray markii hore intaan dib u raxmo ku soo dhawaan waxa qaba jiray waxyaabaha xun balwada sida balwada kale iyo nafii shaydaan intay bilaadan ku raacdaa qaba jiray balwada isticmaal jiray ma ka dheereen jaad iyo sigaar iyo wala hadda magaalada ku soo kordho liira taabu macallimiinta wallahi boqolkiiba boqol ilaa hadda waxa maata ma ka filan mana ka arki doon ma sha Allah boqolkiiba boqol wallahi xaafadayda intaan waxa ka heli jirina hadda meeshan igu diyaarsan mar hadda xaafadda imaado waxa la dhigi jiray waa laha cunto wax sidaas la dhigi jiray marka hadda meeshan wax iga cunaa male waa alxamdulillah sariirtayda igu hoos jira macallimiinta wax ka dhiga xarunta dhaqan celinta dib u raxmo ayaa sheegay in ay isbedeleen nolosha dhalinyarada hadda ku jirta xarunta alxamdulillah asharo badan aan bixinaa asharadaas waxa kamid ah quraanka kariimka waxa kale oo kamid ah ahadiis waxa kamid ah kitaabka Ilaahay Xusn Muslim waxa kamid ah fiqh marka alxamdulillah ciyaalka hadda way soo hanuunina Ilaahay hanuuniyo waxaan inta wareysanayna ciyaalkaas waxay noo sheegeen oo la cajabno waxa kamid ah daroogadii markii nin kamid ah aan wareysanay wuxuu yiri marka daroogadii si fiican u cuno yiri waxa uu qabo yiri cirka inuu igu soo duba cirkii aan ka gabaraho yiri marka waa garguurinuu yiri cirkii ay igu soo dhawaaday marka daroogadaas intaas gaarsiiday ilmaha hadda alxamdulillah quraankii waa ku toosan yihiin noloshooda saddexda waqti waa haystaan macallimiin wanaagsan oo waxbarayda way joogtaa marka insha Allah dadkii hadda ilmahooda ay doorka ku jiraan oo alxamdulillah oo dhibaatadaas ay haysato waxaan leeyahay dib u raxmo ku soo dhawaada maamulaha xarunta dhaqan celinta dib u raxmo ee magaalada Beledweyne Amalow Cali Geedi ayaa sheegay in qaar kamid ah dhalinyarada xarunta la keenay iyagoo isticmaalaya maandooriye iminka ay noqdeen macallimiin wax ka dhiga xarunta umadii hadda meeshan kamid ah qaar waxay noqdeen macallimiin ay noqdeen qaar waxay ka noqdeen xarunta qaarkeed shaqaale ka noqdeen
qaarna markii waqtigood u dhamaado waxay ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in shaqo ay magaaladooda ka helaan, in nafsadooda anfacaan, waalidkoodna anfacaan. meeshaan waxaa laga rabaa, meeshaan xabsi maaha, waa meel loogu talagalay bini'aadamka in naftiisa lagu xafido. naftiisa qofta markuu xafido naf kale xafidi karaa, qofta markay is anfacdo qof kale anfici kartaa. waxaan ugu talagalnay awlaadan walaalaheena wiilasheenii ah, dhalinyarada ah, daroogada iyo wixii ay disheen ayaa waxaan ugu talagalnay inay dadkoodana anfacaan, ay kuna is anfacaan. xogayaha guud ee xarumaha Diburaxma Dr. Dinix Maxamed Dinix ayaa ka sheekayay muhiimadda loo aasaasay xarumahan. ardadii u horeysay dufcadii u horeysay xarunta ay qabatay sida ay isku bedeleen, sida noloshooda isku bedeshay iyo shalayto waxay ahaayeen, maanta alxamdulillaah falilaahi alxamdu waxa ay maraysaa xarunta qacinta Diburaxma Beledweyne meel ay dadka ku soo hirtaan. inagoo hore xarun uga furnay xarunta Diburaxma waxa la aasaasay 2014 bishii koobaad 10keeda 2014 la aasaasay Diburaxma. xarunta qacinta Diburaxma waxa laga aasaasay magaalada Muqdisho, inagoo Muqdisho ku leh 4 xarumood oo lagu dhaqan celiyo dadka. 3 xarumood waxa ku jira ragga lagu dhaqan celiya, waxa ku jirta 195 ruux ku jirta saakay. xarunta gabdhaha waxa ku jirta 28 gabdhood oo dhaqan celina, kuwaas oo loo sameeyay waxbarasho kala duwan iyadoo la barayo Quraanka Kariimka iyo kitaabada asaasiyaadka sida 40 Nawawi, Khulaasatu Nuur al-Yaqiin ala madhhab Shaafici, su'aal iyo jawaab, Husn al-Muslim min adkaar al-kitab was-sunnah, Khulaasatu Nuur al-Yaqiin iyo usul al-thalatha. kitaabada waxaan ugu talagalnay manhajka koowaad Diburaxma 6 bilood oo horeysay inay ku dhameeyaan. ardayga waxa uu heli doonaa insha Allah taala jiif iyo hooy wanaagsan, cunto 3 waqti isku dheelitiran iyo waxbarasho. hadafka Diburaxma waa 3: inuu ardayga helo meel nadaafada uu seexdo ku haydo, cunto isku dheelitiran, waxbarasho lagu la xisaabtamo macallimiinta. Diburaxma dadka ka baxay caalamka kala fiirsan yihiin waa kumanaan ay ka faa'iideystay Diburaxma. 7 sano ayay jirsatay Diburaxma, haatan waxa ay jirtaa 7 jir weeyaan Diburaxma insha Allah taala. waxaan xarun ku leenahay magaalada Kismaayo iyo gobolka Hiiraan oo hadda xarunta hadda aan nagala hadlayo magaalada Beledweyne. alxamdulillaah ilaaha maaskare Allahna soo gaarsiiyay in aan indhahayna ay ku joogsadaan ardaydii xarunta dhaqalinta Diburaxma Beledweyne dufcadii koobaad oo maanta muuqaalkooda quruxdooda arki kartaan. hadafka koobaad ee Diburaxma aan furno waa maxay? in la helo jiil mustaqbalka ku xiran Ilaahay jalla jalaaluhu, garta maslaxadooda adduunyadooda iyo aakhiradooda. alxamdulillaah ilaaha maaskare. xarunta dhaqan celinta Diburaxma ayaa xarumo kala duwan waxay ku leedahay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya sida Muqdisho, Kismaayo, Doolow iyo magaalada Beledweyne ee xarunta